وهلا وقومية حر حيلديد okay so sheekadii ku saabsanayd at the end times Armageddon ama dee yowmal aakhira iyo qiyaamaha ayaynu sii wadaynaa so already waan kasoo hadlay diiniyahan ama dee maxaa la yidhaha af carabi ahaan waxaa la yidhaahaa malxala al-kubra the great battle the big battle between good and evil marka siday bibleka ugu qoran tahay taasi waxa weeye sida qur-aanka iyo furqaanka ugu qoran tahay tan bibleka waxaan yidhi waxay ku taalaa in the book of revelation specifically maxaa la yidhaahaa de dagaalkan magac buu leeyahay oo waxaa la yidhahaa Armageddon marka magacan Armageddon ayaynu u fiirsanaynaan fasiraynaa waxaa la yidhaahaa waa laba erey oo ah har magida harde marna harkaasi waxay leeyihin waxa weeye waa hill of magida marka harkii waa halkan ereygan hargeysa ka yimid har waxa weeye meel buura hargeysana waa meel buura I don't know hadaa taqaaniin marka hillna waa meel mountaina marka hillka waynu kusoo laabanaynaa magacayga saddexaad in isticmaalayo waxa weeye xildiid laakiin hildiidna waad oran karaysaa xil waxa weeye markaad dee leadership xil haysid hiilna waa maxay waa markaad leedahay bilaa hiil baanahay ma fahanteen xildiid ama no alliance ama hiil yaan la aqbalin yaan gardarada loo hiilinin basically af ingiriisi ahaan si kale haddaa u macnaysid hiilkaana waa healing healingna waa maxay waa caafimaad but aynu kusoo laabano tan ku saabsan maxaan ku idhaahayay hill of magida haddana waynu sii macnaynaynaa so magad waa migad bay idhaahaan laakiin waa magad weeye gaadna waa maxay dee waa halku ereygan gadabuursi ka yimid ilan reer dhan baaba iminka isticmaale gadabuursi oromada haddaad u fiirsatid loogooda ama xeerkooda waxay dhahaan gada loo waa xeer ka dhexeeya dadka ma fahanteen marka wixii balance baa loo baahan yahay wuxuu waa inay half iyo half yihiin half dhidig yihiin half lab yihiin laakiin wixii haddaad wada masculine ka dhigtid dee masculineku nabad ma keeno islaam ma keeno peace ma keeno barwaaqo ma keeno wuxuu keenaa dagaal chaos iyo wax la burburiyo ma fahanteen iyo wax la dilo marka iminka diintan sida loo afduubayba waana diin aan maaragtay miisaanba lahayn oon balance ba ahayn oo inta feminine-ka la idhaaho ama dee energyga feminine-ka la idhaaho energyga ku saabsan dhidigga khadka laga saaray marka waxaasi peace ma noqon karayso diinna ma noqon karayso dhaqanna ma noqon karayso marka nimankuna dee maaragtay sidii maska dabadiisa qaniinaya ama dee monkey business sheeka daanyeer unbaa lagu jirayaa dhaqan xun baana ka dhalanaya niman iyagu iscaashaqay oo maanta dhan nin xabiib dakuraya dee hadhow toolana dad ansha xun bay noqonayaan oo iminka waa waxa ka socotaba so calaa kulli xaala iminka haddaynu sheekada soo koobno maaragtay dhinacana de idinka tusayey hill of magida waxaa laga hadlayaa habar baa laga hadlayaa astaan qaybtii dumarkaa laga hadlayaa ma fahanteen qaybtii bilqays baa laga hadlaya bilqays waa maxay qays waa maxay qays waxa weeye qays roobaad weeye waa barwaaqo halkay ka timid waaq baa tiraaheen balaakiin waa barwaaqay asaliyan ahayd marka wixii markaad only masculine ka dhigtidna sheekadu waa dee iminka yowmal qiyaamihii bay keenaysaa ma fahanteen marka iminka yowmal qiyaamahan taagan hawada peace keenaysa hawada islaam keenaysa hawada salaam keenaysa maaha hawo masculine maaha nin kan mahadle imanaya nin baad sugaysiin christianku waxay sugayaan iyaguna nin ciise u eg yuhuuddana sidaasoo kale nin bay sugayaan ninkii kan adduunka duminayaba weeye hawadu barwaaqay wadaa hawadu it's a feminine energy waa waxaan idhaahaan qateesh waa halkan ereygan qudus ka timid holy marka hawada nabadda ku jirta hawada salaamta keenaysa hawada peace keenaysa waa hawo dhidiga waa hawo feminine maaha
hawo masculina marka been baad isku sheegteen qur-aankii iyo tafsiirkiina dhinac baad u jeediseen whether you are aware or not ama jaahilnima keentay yaa ama dee waxa keentay maxaa la yidhaahaa Somali malice yaa intention ogaan baa saas dhinacaas loogu duway wallaahi waa la iswaalayaa shaqalada haddaad ka shaqaysidood ku dartid the vowels matter yaa sheekada meeshaa rabtid baad geyn karaysaa balaakiin wixiina haddaad discernment leedahay ood contextka sheekada fahmaysid shaqalada ama dee vowelskii saxdaa baad gelinaysaa marka alquds ama qudsnimada laguu sheegayo qudsnimadu meel gaara may hayn yaa awdalba holy land bay hayd ma fahanteen marka quds adigu haddaad saddexdaa xaraf adigu haddaad shaqalada gelisid dee si kala duwan baad u fasiraysaa qadas bay noqonaysaa qateesh bay noqonaysaa shaqalada markaad isticmaashid qateeshna gadaal baama soo dhigi doonaa waxaa loo yaqaanaa waxa weeye feminine energy yaa naag libax saaran weeye hoolina yaa ah yaa jannadii waa lugaha hooyada soo lama idhaaho marka war yaan la iswareerin ila idinku isfuuli maysiin ragadaa tihiine waad wareerteene waxani wallaahi waad jah wareerteen nin carabaana dhalay iyo halkaasaanu ka nimid iyo rag kalaana dhalay iyo tii ku dhashayna holy of holy yaa makaankii aad ka soo baxdena you have no respect for it marka waxaad la jah wareerteen ayaad qabtiin anyways intaasina waa intaa waxyaalo kalaan kusoo daraya sheekadan next time anyways bye